بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة عشاء قروح بدن لسوا دوادا. maanta waxaan ka qayb galnay bandhiga carweed soo bandhigeen gabdhaha ganacsatada yaryar ee magaalada Muqdisho ayagoo ku soo bandhigay beerta nabadda. bandhigani waxaa lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan. sawiradan idin muuqda aad arkaysaan waxaa waaye sawirada loo isticmaalo decorationka ama sharaxaadaha guryaha, fadhiyada kaleeto, xafiisyada kaleeto ayaa loogu talagalay. dibadda lagama keenin, waxaan aad arkaysaan ayaga ayaa gacmahooda ku sameeyay. maasha Allah tabarakallah. decorationkan waa wax qurux badan in business intay soo saaraan misna ay soo bandhigaan. waa shay cajiib ah run ahaantii. kalar kasta ayuu leeyahay, lamana qiyaasi karo. run ahaantii waa wax qurux badan, waa wax lagu faano, waa wax lagu farxo. maxaa tiraahdaa waa wax aan innaba laga sheekeyn karin. sidoo kaleeto waxaana arkaysan waxaa waaye raayadihii loogu talagalay in darbiyada hoos lagu dhejisto meel kasta oo guriga ka mid ah oo sharaxaad aan lagu dhejin karaa. kuwan waxaa waaye sharaxaadihii shoobin saarka way noo sheegi doonaan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. laakiin waxaan tusinayaa qaybaha kala duwan. ahaantii awal waxaa arki jirnay unsi oo lagu shubayo qasac waagii hore, laakiin hadda waxaa la keenay geedo loogu talagalay unsiyada oo ayaga ee xardheen ee sameeyeen. maasha Allah. dibadda ma laga keenay alaabtaan itus itaabsiyaa lahaa walaashiina aamin waxaa nii keentay ubaxyadana ujeedin iyagaa sameeyeen. maasha Allah tabarakallah. maasha Allah waxa innaba caadiyan waa ubaxyadii loogu talagalay in loo isticmaalo sharaxaadaha guryaha in loogu talagalay. marka lagama sheekeyn karo. waxaa markaan rabaa inaan qaybtan muraayadahan iyo ii sheeg waxyaabahan aad arkaysaan waxa lagu soo bandhigay. ii sheeg maxaa dhahaysaa muraayadihii loogu talagalay waa darbiga. waa u yeedin walaashin aamin macallin halkaas taagan. run ahaantii sida loo xardhay ujeeda muraayada sawir ilaacis. maasha Allah. dalka ayaa lagu sameeyay, naqshado kala duwan ayaa loo sameeyay. eeg ubaxan maasha Allah. maasha Allah tabarakallah. maasha Allah. run ahaantii waxyaabihii loogu talagalay in qolka fadhiga sharaxaad ahaan loogu sameeyo ayaa halkan ka muuqanaya. kulli alaabahan u jeediin oo dhan waa alaabo ay sameeyeen, ay gacantooda iyo xirfadooda Allaha u barakeeye ay ku sameeyeen. marka hadda waxaa weydiinaynaa cabaayadaneeti oo ah qofka soo bandhiga qaybtan decorationka. soo dhawow magacaaga. magacayga Aisha Ali. waxaa dukaankayga waxaa la Aisha decoration. waxaan u sameeyaa gabdho walaalay inaan ugu faa'iideeyo. waxaan aniga gacantay ku sameeyay waa insha Allah. waxaan rabnaa inaan ka maarno wax dibadda laga keenay insha Allah. waxaan waa ni kala sheegayaa insha Allah. insha Allah waxaa waaye waxaan ka sameeyaa alaabo oo ani aan soo gado kadib waa isku keenaa wax qurxan kan nabada bandhigta u jeedaa. waxaa waaye miraayad darbi soo qurux badan ka miraayad loof waaye kulli hay si fiican hay aragna. maxaa loogu talagalay marka miraayada darbi loogu talagalay in la suro. waa kaasa badan yihiin insha Allah. mid kale waa tanaa hadane taas sidoo kale iyana u jeedaan miraayad darbi waaye. waxaa waaye insha Allah wax wadankeena aan ka helayno ee goor walaashiina nii sameeyay. maasha Allah. soo dhawaada. muraayadahan bahalaha ku dhagan waa bahalaheeni oo badda laga helo. waa dhagxaantii aleesha badda ka soo baxaysay. aleesheeni badda ka soo baxaysay. waxaa wadankeena waxyaal inaa waxaan ku quruxsano. marka la soo dhawaado waxa ku dhajiseen ubaxa ku dhajiye xardhaa soo jeedin. farsamadan qaab ceenka u isticmaasheen marka. wallahi abaay maxaa lahaay waxaan qof ku dhalatay ma jirto. waa baranay alxamdulillah. waxaan rabnaa wax dibadda laga keen inaan ka maarano. maasha Allah. waa muraayada marka suuliyada guryaha meel kasta oo lagu dhajin karo. wax kasta kuwan oo kale ka qabo. okay insha Allah waa kaasa wali miraayad darbi kale waaye. kan sidoo kale idan miraayad darbi waaye u jeedin. waxa loo isticmaalaa hadda badan ay gabdhaha qaataan waji dhaqyada meelaha waxa waa kaasa idan ma sha Allah oo qiimo macquul ah oo maxaa la lacag badan ahayn insha Allah
inaan iga faa'iideeyo oo aa jeclaaday marka soo dhawaada walaalihii insha allah u jeediin gabar walaashiina Soomaaliya sameeyay hade insha allah waxaan ku weydiinaynaa marka alaabtan aad sameynaysa yaa ka caawiyay waxyaabaha Allah horta qof kaligeed wax ma sameyn karto dad badan ay caawiyaan guriga walaalihii ay saacidaan ma sha Allah gabadhan u jeeditaan walaashay waaye war ilmaha yar yariiska guriga jooga xataa ay la sameeyaan alxamdulillah qof wax ma qabato laakiin fikradda iyo maxaa lahaye ana qaabo u sameeyo marka alxamdulillah soo iibisa marka dhagxaantana qale kuulasha everything waa soo iibiyaa dhagxaanta ma soo iibisa inta badda ka soo qortaa no badda waa liga keenaa ani wad ma aadimo ay qof ay keento laakiin lacag badan ma ka sameeyno oo waan wiilna u dirsadaa waxay sidoo kale waxaan u jeedido dhan miraayadahan kan hada miraayad darbi waaye markaas u jeeda hada miraayad darbi waaye أنا نسميه ما شاء الله وكاسة يبين تهاي ولو كفديقة يشتك بكسر كرتان وكاسة يبين عادي ما شاء الله عادي ومراي لا مرايات أو دول صار عمل شرح حسا عادي 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 ناس مرايات كلواي عادي 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 وتصادم muraayadaad soo iibisaan kadibna waxyaabaha lagu xardhaan xardhaan oo soo gadaa naqshad at least wixii ani ila qurux badnaado ani guriga ku samaysan lahayn wixii la qurxanaada walaalihii uga faa'iideeyaa si soo sameeyaa waxaan u jeedin dhan ku dhamaantood wax dibad laakiin kuma jiraan waxa ani sameeyay okay muraayadan kale tan gabdhaha lagu tala galaa malayna midda bas ahay ka saadada yar yar ka gabdhaha waxa ka fiidis la isku fiirin karo qiimo macquul ah door walaashiina ay sameeyay dal soo dhawaado insha Allah marka bandhigan cilmi muraayada bandhiga markii ugu horeysay aad sameysaan baa mase la bandhiga ka horeeyay ana horta waxaana ururka gabdhaha oo gabdho ganacsato oo wax soo saar leh maxaa la dhahaye waa sameeysan hadda ka hor liido ani waa ka maqnaa markaas ururdaara dhigtay laakiin waa sameeysan insha Allah kuwa kale oo ka qurux badan kuwan ka fiican waa soo wada marka kuwa gadaashaada ku dhigan waa kuwa gidaarada loogu talagalay waxa u jeedin calanka Soomaaliya color kasto color kasto waa heli kartiin jaalo guduud maxaa loogu talagalay marka waxaa loogu talagalay darbiyada in lagu dhagsado color hadaad color kaartid diifkaaga fadhigaaga wax kasta waa u wada jeedaa kulli dhamaantood kala color waayo gudoogan qof kasta kala kaash in uu sameeyo walaalay color ugu jecel yihiin saa ugu sameeyo yani si ay kaaga soo dalbadaan ay kaaga soo dalbadaan qurux badan wax way iga iibsadaan waa ii mahad see u aragtaan marka maanta bandhigan oo ku sameynaysiin bandhigan aniga waxa u sameeysan muhiimadda waan in wax laga gato muhiimaddan waxaa gabdhaha abuurka leh inaan ku dhiirigelino ina iyagana banaanka imaadaan wax qabsan karno aad tusno gabdho Soomaaliyeed oo maasha Allah aad wax barato waa bulsho wax barata aad aad si fiican alaabo badan yihiin way badan yihiin wayna maxaa leedahay marka gabdhaha guriga jooga iskoolada dhameeyay camalka haynin hal soo baxo wax qabsan wax aan sameey karin ma lahan balaa horta mid dadka badan waxay dhaan waxaan u sameeysaa waxaan loo sameeyaa horta qofka u jeedin wax sameeyaa ninku dhashta ma jirin kasta oo bartay marka wax kasta waa baran karaa gabadha saacidaad rabto walaaleen waxaan wax la barto waa guriga ka soo taga hal shaqaysto insha Allah wax fiican waa wax dhib badan ma ahan jaamacada dil dhameeyo waxa fiican ina oo at least inta fadhin lahayd wax un aasmayso soo saar la yeelo ma sha Allah aad iyo aad ma santaa waxaan ku leenahay ganacsigaaga Allah ku barakeeyo insha Allah shukran soo dhaw insha Allah bandhigi qeybiisa kale waa arki doonaa hadii Ilaahay yiraahdo run ahaantii dumar badan ayaa halkan isugu imaaday qof walba xirfadiisa iyo wixii asaga ugu talagalay in uu bulshada tuso ayuu halkan keenay qayb ayaan arki doonaa waa walaashin aamin macalin oo idin leh subscribe like share comment gabdhaha Soomaaliyeed ee ganacsiga cusub sameeyana hala soo dhiirigeliyo